sheekadu waxay nooga bilaabanaysaa gabadha ay wiilkan walaalaha oo baxsanayo waxay ka baxsanayaan aabahood ugu dambeyn meel amni ayay tageen inkasta oo roob ahayd gabadhan booska hooyanimo oo kale ayay kasoo baxday wiilkaas ka yar ee walaalkeed oo hooyadad ka dhimatay iyo aad u daryeesho waxay bilowday inay la tuugsato maadaama aysan wax kala hayrin oo laamiga ee koomba dhigato ayay gaartay ugu dambeyn walaalkeed wuxuu cuni lahaa ayay usoo dhicisay waxay ahayd gabar adag oo booskii hooyo ku jirto waxay bilowday inay fuundinimo ku shaqeyso iyadoo yar oo gabar oo sidaas u yar way xamaali jirtay wax walbay qaadi jirtay guri ayay dhisi jirtay si ay nolosheeda iyo tan walaalkeed meel uga soo saarto culays walba iyo wax walba ay awoodin ayay qaaday balqiyaas gabar yar oo fuundinimo ku shaqeynayso si nolosheeda iyo nolosha walaalkeed ee meel uga soo saarto ugu dambeyn heer ayay gaareen ayadii walaalkeed waa kaasaa sidaas ayay u qurux badnaadeen iskoolka ugu qaalisan ee magaalada ayay galeen sidaas ayay noloshooda isku bedeshay maanta aad ay u faraxsan yihiin shalaysay ahaayeen maanta maaha waxay leedahay alla hooyaday maanta may noolaata ee aragta kartidan gaaray aabahoodna waa kana hadda ayuu arkay muxuu sameyn doonaa talow la soco qaybta dambe falow soo dheh